kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada sheeko ku saabsan gabadhii sababtoo ahayd in ay dhacdo xukuumadii Japan ee 70-meeyadii. gabar indhoolo ahayd oo u dhalatay dalka Japan ayaa isku dayday inay tareenka raacdo. waqtigaas wadada tareenku ma diyaarsanayn dadka naafada ah. gabadhaas ayaa ku dhacday biraha wadada tareenka iyadoo isla markiina halka ku dhimatay. arrinta ayaa gaartay geeska dalka Japan. dadkiina waxay bilaabeen inay dhaleeceeyaan xukuumadda oo ka gaabisay in aysan wadada tareenka u hagaajin dadka naafada ah. waxaana ay keentay arrintaasi in dawladda Japan ee waqtigaasi ay dhacdo. maanta dalka Japan xarumaha tareenka laga raaco waxay leeyihiin qalab u diyaarsan dadka naafada ah. ma ahan oo kaliya dadka aragga qof walba oo naafo ah si fudud ayuu tareenka ku raacayaa iyadoo aysan cidina kaalmaynayn. waxayna marayaan dariiq u gaar ah oo loogu talagalay. dariiqyadaasi waxaa ku qoran halku dhiga ah hawaaro kan toosiyay dareenka shacabka Japan oo loola jeedo gabadhii dhimatay. dhibkii gabadhaas ku dhacay waxa uu kiciyay dareenka dadka Japan taasoo ugu dambeyn sahashay in ay helaan waddo tareen oo aad u wanaagsan oo ay maanta ku naaloonayaan. dhibkii hal qof soo gaaray ayaa dheef u noqday malaayiin u dhashay dalka Japan.